رجينا إن طبعا سمر لو أفري مركوا وزير كأرمها بدها فدرالك وزير كأرمها بدها فدرالك في سينتا وزارة بدها سفيرة بعض الصحافة هوين الصومالية قبلها الصومالية دوبك يا دمان صاحبتك هذا الجوبي علماء الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي واحد بدل ما نيجي دونه كلي هذا الجوهر رعلاه وحي تهاي مقدشة بسود دوالة قول كبنادم بسود دوالة وعاصمة دولة الصومالية وأنا خويا دي صوماليا أولاً دمان أنا وحنا مسنا عنيك يا صاحبتي أورنتي كرتي صاحبتي يلا شقيو كلوني كودينا دمان تود ولا كرتي إن دتك وراله أنا ينوبي صوماليا قيم هذه كلا جوان دول كده دمان تود نوجو دي هذين نقول له بنتمان هذين نقول له جبلان هذين نقول له أديل مدوب هذين نقول له شمال يصاب وسط دمان تلقى سنوكلي هي صاحبتي وحي لا كرتين وأي سوى الأكسن يسمى له هي فينا دمان هبين لا أفرنا ويفعلنا له أيضا رمضان هنا أنت مرنا قدينه أما وضع عشان وقت بنوضع قادنا لكن أنت أكو بدنا ما دام هو يدي دمك هاي الشوك إننا نوانين ما دورنا إذا كان ونوي ما دورنا إن شاء الله تعالى أنا هو حنا مثلنا هاي قفك مقدشة جوجا أو مقدشاوي والسفير Soomaaliya inteeda kale oo dhan halka ku joogo oo Soomaaliya markuu meelaha kala tagana safiir waa dadka kale ee ku nool caasimadaha dowladda oo dhanna waxaan aaminsanahay inay noo yihiin safiir noo jooga meelaha Soomaaliya maadaama halkan ay tahay hooyadii dhammaan dalka Soomaaliyeed oo ay tahay muraayadii Soomaaliya oo dhan ay ka dhaxayso inta kadib waxaan rabaa laba arrin ka dhaw arrinta dib u heshiisiinta ee la soo gabagabeeyay واتلابو ونكسب رجي ومانتان قيب كم إذا كهذا الله مركز الشيء اللي يبغى شيء يا كالنتي سوي بحكتي معك وإسصعد كذاتك والسيما وحن قياسي كرا طبعا سنة كهر مركب إن شاء الله وقبتي شركة يبغى شيء تقرن حلقي مدحين عبد الله صلى الله عليه وسلم مركب لقد شركة يبغى شيء إرجع جاري سيسدح كل يا سوتي oo ka kala timid Soomaaliya qaybaheeda kala duwan oo dhan waxyaabaha aan ka xasuusto waxa ka mid ah shirka waa ka qayb galay waxaan ka xasuustaa dadka maalinta yimid waa dad ugu dambeysay muqdisho sidii dagaalku u dhacay ama dawladlaanta u dhacay maantana horumarka la gaaro waxay tahay dadka muqdisho imaaday intooda badan waxay u badan yihiin dad dhowr mar imaaday oo soo laabtay muqdisho waxay leedahay soo dhawaada muqdisho waxay leedahay ku soo dhawaada mar kale wayna sugaysaa muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyntii waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka oo runtii caasimada aan fadhina naga aqbalay ergadana gaarsiiyay waxaana sidoo kale uga mahadnaqayaa kaalinta wanaagsan ee laga qaatay dib u heshiisiinta taas oo ahayd waxaan ka dareemay dib u heshiisiinta shanta maalin socotay wax la yiraahdo isku furnaan oo dadka inay isu laabxanaadaan oo ay yiraahdaan wixii ku soo dhaco oo dadku ay turxan bixiyaan ama la tiiraan bixiyo wixii la kala tabanayo marka wasiirka uga mahadnaqayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay afur wanaagsan ku soo dhawaada muqdisho ku soo dhawaada gurigiina ku soo dhawaada maraayadii dalka aad iyo aad u mahadsantahay ku soo dhawaada wasiirka arrimaha gudaha